Ku dhawaada toddobaad kadib duqeyntii milatariga Israa'iil ay ku qaadeen hogaamiyeyaasha Xamaas ee ku sugnay magaalada Duuxa ee caasimadda dalka Qatar. Caasimadda Qatar waxaa ka socdo shir degdeg ah oo ay leeyihiin Carabta iyo dalalka Islaamka. Kulanka loogu gogol xaarayo shirka wasiirada arrimaha dibadda ayaa dhici doono saacadaha soo socdo, iyadoo madaxda iyo madaxweynayaasha ka qaybgalaya ay kulmi doonaan maalinta Isniinta. Kormeerayaashu waxay rumaysan yihiin in shirku uu ka dhigan yahay waxa ay ugu yeereen waa fursad taariikhi ah oo lagu muujinayo mowqif wadajir ah oo wax ku ool ah oo ka dhan ah siyaasadaha Israa'iil oo ka baxsan bayaanada dhaqameedka ee cambaareynta. Qof kasta wuxuu u heelan yahay inuu arko ikhtiyaarada ay hogaamiyeyaashu ku soo bandhigi doonaan miiska wadahadalka. Shir madaxeedka ayaa lagu wadaa in looga hadlo qaraar qaybo ah oo ku saabsan weerarkii Israa'iil ay ku qaaday magaalada Duuxa ee caasimadda dalka Qatar Talaadadii la soo dhaafay, kaasoo lagu soo gabagabeyn doono shirka diyaarinta ah ee wasiirada arrimaha dibadda Carabta iyo dalalka Islaamka oo la qorsheeyay inuu dhaco maalinta tan ah. Dhankiisa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar Majid Al-Ansari ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in qabashada shir madaxeedka dalalka Carabta iyo Islaamka uu xilligan leeyahay macno iyo faa'iidooyin dhowr ah, isaga oo tixgelinaya in shirkoodu uu ka turjumayo waxa uu ku tilmaamay mid ballaaran oo Carab iyo Islaami ah oo ay la leeyihiin Qatar. Gardarrada fulaynimada ah ee Israa'iil ee lagu bartilmaameedsaday xarumaha ay degan yihiin hogaamiyeyaal badan oo Xamaas ah waxay kaloo ka turjumaysaa diidmada buuxda ee dalalka Carabta iyo Islaamka ee argagixisada dowladda ee ay Israa'iil ku dhaqanto. Waa sida uu hadalka u dhigay.